Members of the press, before I read my statement, I wish to request all of you to stand and observe a minute of silence in honor of those who have lost their lives due to the terrorist bomb attacks, including those which occurred during this week while I was here. maalin wanaagsan mudanayaal iyo marweyn ka hor inta aan jeedin khudbadayda waxaan jeclaan lahaa in aan idinka codsado dhammaanteen in aan u sarakacno oo aan daqiiqad aamusnaan ah u muujino dadkii lagu laayay weerarkii shalay iyo kuwii asbuucan inta aan joogay ka dhacay muqdisho, including those which occurred during this week while I was here. Biham Tom oo ah khabiir dhanka arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan howlgalka qaramada midoobay oo shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in inta xilka uu hayay uu maray deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada dalka ka jira. Waxa uu tilmaamay xaalad bini'aadanimo oo liidato ay ka jirto deegaanada qaar. My first mission to Somalia was in December 2014. howlgalkaygii ugu horeeyay ee Soomaaliya waxa uu ahaa bishii December 2014 xilligaas waxa ay suul gashay in aan Muqdisho uga safro Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed. waxaan sidoo kale kulamo la qaatay wasiirada dowlad goboleedyada iyo Somaliland waxaana dhammaan meelaha aan booqday kala soo kulmay xaalado bini'aadanimo oo adag. Members of the Human Rights Committee of the Federal Parliament. I met federal ministers responsible for water and energy, constitutional affairs, justice, health, and the Minister for Women and Human Rights Development. Bihamton oo soo hadal qaaday caqabadaha dalka ka jira waxa uu sheegay in caqabadaha haatan dalka ka jira aan laga gudbeenin ilaa dadka laga tirada badan yahay dhalinyarada dadka baahiyaha gaarka qabo iyo barakacayaasha ay helayaan xuquuqda dastuuriga ah. isagoo baarlamaanka dalka ugu baaqay in ay dastuurka ku daraan dadkaas xaqooda. However, I note that so far there is an absence of an acceptable mechanism to guarantee representation of women, representation of members from minority clans, marginalized communities such as IDPs, persons with disabilities and the youth. And I therefore urge the federal parliament inta ay maqan yihiin xubnaha matala haweenka beelaha laga tiro badan yahay dadka baahiyaha gaarka qaba barakacayaasha iyo dhalinyarada leh hanka sare caqabadaha halkeeda ayay ahaan doontaa. waxaan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kula talin lahaa in ay xaqiijiyaan ayna ku soo daraan sharciga doorashada si loo ilaaliyo qoontada haweenka baarlamaanka iyo habka xaqiijinta doorashada xubnaha dadka laga tiro badan yahay bulshada la faquuqo dadka baahiyaha gaarka qaba barakacayaasha iyo dhalinyarada. khabiirka ayaa sidoo kale shirkiisa jiraa'id waxa uu ku sheegay in 6 sano ee Soomaaliya uu joogo warbixinta ugu badneed ee soo gaaraysa hay'ad caburinta cagajugleynta iyo xariga bilaa sababta ah ee loo geysanayo saxafiyiinta Soomaaliyeed. Among the challenges which remain during the last 6 years, and this is one is very important, I'm sure, for members of the media, is the continued reports that I receive about the intimidation, arbitrary arrest and the detention and the harassment of journalists across the country. 6 sano ee aan ku sugnaa Soomaaliya riboodkii ugu badnaa ee soo gaaro waxa uu ahaa hanjabaad xarig aan sabab lahayn iyo cadaadis saxafiyiinta Soomaaliyeed ay kala kulmayaan hay'adaha amniga. tani waa caqabad wali taagan. waxaan ku celinayaa in la dhowro oo la xushmeeyo xorriyadda hadalka iyo fikirka saxafiga. ugu dambeyn Biham ayaa beesha caalamka iyo dhammaan deeq-bixiyaasha ugu baaqay in aysan Soomaaliya taageerada ka goosan waxaana uu sababay in Soomaaliya haatan ay soo hagaagayso dad waliba. And as I conclude also, I wish to urge the international community to continue its support to Somalia because so far the support has enhanced the stability. waxaan beesha caalamka ka codsanayaa in aysan yareynin taageeradooda Soomaaliya ee waqtigan oo ah xilli xaalad deganaansho laga dareemayo Soomaaliya
waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dhammaan deeq-bixiyaasha caalamka in ay sii wadaan kaalmadooda ee ay ku caawinayaan Soomaaliya.